dimuqraadiyadda iyo shuurada waa muxaadaro islaami ah waxaa soo diyaariyey Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أنت لقى بالعباد يا الله إذا وحن شعل لنا كورنا موضوع كتابا النظريات السياسية في الحكم أما أركتد عالم فوق لقبه كتابا ما ملك إنه ربنا مكاسيني من تركيزنا أما سيصوبا دقنا أركتد الإسلام فوق لقبه ما ملك عدنا دا إنه مسلمة هدنا إنه أبو أقوان درنا هاي مبدأ إنه رميسان هاي لكن أركتيو إنك تلاقي عالم كي الله ينبضنا كمدا in wax laga og yahay baa laga yaabaa maanta markaasi waxaan jeclay inkastoo fi taariikh العالم aragtiyooyin kala gedisan ay soo mareen مثلا waxa soo martay aragti loo yaqaan nadariya al-haqq al-ilahi dad magaca baan wax ku xukunaa leh oo weediisu marka yani kalimatu samaa isagu wata waa sidee boqortooyinkii Romanis ama xukm al-qitaaciyiin iyo wixii la midisay wax ku xukumi jireen waxaa martay nadariyatu alquwa wala la aqd ijtimaaciya maaha ama maaha bulshada iyo maamulkeedu waxay wada galaan ma jireen cidii xoog badan uma wax xukunta wala aragti taariikhiya qabta iyo aragtidan maanta dadku in badan oo afka ku celceliya dimuqraadiyadda la yiraahdo oo kamid ah aragtiyooyinka maamulka ee dunida soo maray ama se ka jira wali waxaan jeclay markaa maanta inaan ka warramo cinwaanka mala darbiga lagu dhajiyay waxa weeyaan dimuqraadiya wal islaam laakiin ma jeclay inaan sidaa isu barbar dhigo waayo laga mabda'o isbarbar dhigma maaha waxaan rabnaa waxaynu isdhinac dhigi karnaa inay noqoto الديمقراطية والشورى aragtida siyaasiga ee islaamku qabo ee shura ku salaysan iyo aragtida dimuqraadiga وإسلام هو واحد كبلارن أركي سياسية كما قمنا مجال سياسي وقرأ واحد كبلارن والدين إلهي يقول طلق علينا وش بني آدم قرنا ديمقراطية ما كان نكون نقولنا هسوحي كيني ساعتين ربنا الله وضع شيئا نسدين عبدنا هنا نصدح شيء شرحه هنا نشرحه واحد ديمقراطية الله يقانه iyo mabaadi'deeda kala gedisan ama khilaafaadka iyada dhexdeeda yaala mumaarasaadka ama practical sidii nolosha loogu soo xukumay kaasi waa dhan waa mar labaad ee waa inaan sharxaa markaasi aragtida islaamku ka qabo maamulka ama waxaynu u bixinay ashura nidaamka loo yaqaan islaamiga waa mar saddexaad ee waa inaan sharxaa markaa muxuu yahay difference-ka u dhaxeeya farqa u dhaxeeya labadan shay muxuu yahay يعني ذلك برضه واحد يجعلنا يسكيل هذا الإسلام هو نظام ديمقراطية أو نظام ما هو إسلام إسلام هو إسلام بس ديمقراطية هو نظام كله يقانو ينا له رسوشة دي قواعده إذا لبدا مبدأ ما كان شرحه أما ما كان شرح الديمقراطية واحد صحيح يعني عندك كلا شرح أركتي إسلامي الشورى الله إذا هذا سياسي واحد قصة لا يسمى وين شرح ما كان حرية فرق أو دحية مسكوا حبي شيء يعني ما كان oo midba kala lagu magacaabi karaa si faraq u dhaxeeya la jira aan ku horeeyo markaasi الديمقراطية waxa loo yaqaan خاصة في الفقه السياسي ayaan ka warramaya waxay ku tahay Europe sida badan ama seen naqaano Europe had iyo goor laba sheegay ka dhimbil qaadata midi waa mabda'eedii Christianity-ga ay rumaysnay markay ka gaalowdayna ilxaadkeedii ka labaadna wuxuu yahay التراث الهيليني أما دحلكي كدحلين يونانيين في هراما غريكي هرين دحلتويدا وحيابيها كدحلين موروثاتك خاصة أرمها السياسة هي مصطلحات كي وحاسي كحليلة انت بدأ وحي كقاوة يوروب
turaadkeedii heliniga ahaa ee taariikhiga ahaa ama waxay u yaqaaneen Greco-Roman Asian Greekskii iyo duwalkii ka dambeeyay Romanska marka la isku xidho turaadkooda ay lahaayeen bay inta badan u noqdaan waxaan odhan karnaa markaas xataa kiniisadda lafteedu maamulka xagga siyaasigaa waxay ku salaysatay aragtida ah dhaxalkii ay ka dhexleen Asian Greekska iyo Romaniinta iyo waxaas xataa kiniisadda saa loo maamulo baynu leenahay waa tan catholic oo kale markaad soo qabato 300 oo kardinaal baa ka taliya dabeetana boob bay doortaan haluma jara wixii ay taariikh ahaan u haysteen ama turaadkay ka dhexleen Greegoodii iyo Romanskii hore ayaa xataa nafsul kiniisa fi siyaasat al-kiniisa dakhiliya lagu maamula idan waxaan leenahay maamulka Yurub wuxuu ku salaysan yahay fikrad uu ka soo dhimbil qaatay wixii uu ka dhaxlay ummadihiisii hore khaasatan Greeka iyo Romanska kelmadan laakiin haddaynu markaa dib ugu noqono maxay ku tahay bal Greekii hore iyo Romanskani maxay ku tahay kelmadda dimuqraadiya la yiraahdo macnahan tirada badan leh quruxda leh imka ay dadku had iyo goor u sawirtaan ma ilahayn yani waxa soo dhan may sheegin bal ee xataa ma ilahayn macnaha ah xukm shacab ee waxa ahayd xukm dahmaa ama waxaan oran karaa dimuqraadiyadda maanta reer galbeedku waxay ku tilmaamayaan waa xukunka caqdu ijaara bayna shacbi walxaakim liyaxkuma binnidaam alladhi yasifuhu lahu shacb waa caqdi bay yidhaahdeen kiro oo u dhexeeya shacabka iyo xaakimka oo la faraya xaakimku inuu wax ku xukumo qaabka ay shacabku u tilmaamaan hiya dimuqraadiya bay yidhaahdaan qaanuunka markaa ama waxaan qaanuunka loo yaqaanee lagu dhaqmayaana waa tacbiir can iraadati shacab bay yidhahdeen waa wax ka cabiraya un doonista shacabka ama shacabku wuxuu doonay laakiin waxaan leenahay marka loo noqdo dimuqraadiyaddii hore ama asalka meesha ay arrintani ku leedahay Asian Greekskii may aqoonin wax loo yaqaano dimuqraadiyad oo ah nidaam dastuuri asliya laakiin waxa ay shaklun min ashkal al-mumarasa shaklun min ashkal mumarasati sulta yani waxa ay waji kamida wajiyada siyaasiga ee markaas ay sameynayeen erayga kan ad-dimuqraadiya wuxuu ka yimi laba kelmadood oo Yunaani oo la isku naqay laba kelmadood oo Greek ah mid waa demos midna waa kratos demos waa bimacna shacab kratosna waa bimacna sulta demokratos marka la isku xidhiidhiyana waa sultati shacab waa sultadii shacabka erayga macnihiisu afka Greega wuxuu ku yahay macnahaasi oo ah labada eray ee la isku rakibay ee midna ay sulta ama power la mid tahay midna ay bulsho ama shacab la macnatay ee marka la isku xidhana macnuhu uu yahay awoodii shacabka ama sultadii shacabka waxaan leenahay markaasi Yunaaniyiintii hore waxay iyagu isticmaali jireen muu ahayn shay siyaasiya oo dastuuriya ama se dastuur leh laakiin wuxuu ahaa qaab ay u mumaaraseeyeen ama se ugu dhaqmeen sultadii markaas waayo waxaynu rumaysanahayba awwalu kitaab fi العالم la qoro ee fi الفقه الدستوري laga qoro وما كتبه العالم المسلم الماوردي ماوردي ugu horeeyay kitaab fiqh dastuuriya dunida laga qoraba لذلك يوروبيا dhankeeda tan lama aqoonba wax loo yaqaan al-fiqh ad-dasturi waa mas'ala mar dambe iyaga u timiba waxaan leenahay marka waxay ahayd aragtida tan aragti ku saabsan inay magaalo meel u baxdo kiyaanad siyaasiyo yaryar inay wax isku xukumaan waxay ka bilaabatay magaalo la yiraahdo Sparta magaalada yar ee wadanka Greeka ku taala dadkeedii waxay qaateen waxaan dimuqraadiyadda loo yaqaan dimuqraadiyadda magaaladaas ay qaadatay waxay rumaysanayeen wax loo yaqaan xukuumatul madiina ama dawladii magaalada dawladda yar ee magaalada waxay ahayd in banaanka ay isugu baxaan shacabka magaalada yar oo dhami dabeetana halkaas qaanuunka laga soo saaraa wax lagu xukumaa xeerka laga fuliyaa wax walba saddexda sulto oo dhami isku mid quray ahaayeen qolada yar ee halka u fadhiisato markaasi waa xeer beedkii un tuulada meel ugu baxday dabeetana go'aan gaadhay waxay gaadhana markaasi magaalada lagu fuliyo
markay muddo jirtay waxaa nadariyadii ay usii sidii bay ku dhaqmeen tuulada yar laakiin mumaarasaadkaasi shacbiga ah ay dadku ku dhaqmeen may ahayn awalan mumaarasa yani ka timid fikrad ama falsafa ama mabdac ay aaminsan tahay ee wuxuu ahaa un dhaqan ay dadka kale iska sameeyeen weliba waxaan odhan kara cahdigaasi falaasafadii joogtay aad bay u ceebayn jireen arrinta dimuqraadiyadda loo yaqaano matalan falaasafadii suqraat aflaatoon aksiniyo aristo shisharo dhammaantood way naqdiyeen aragtidii dimuqraadiga ahayd ee waagaasi ay haysteen waddanka greeg yani ma ahayn qadiya xataa falaasafadooda ay rumaysantahay magaalin baa kaynta isugu qaxday dabeetana halkaan fadhiisatay waa xukuntay dabeetana waa lagu dhaqmay waxaanay u bixiyeen dimuqraadiyad waxaana lagu xukumayay magaalo qure waddan may ahayn ama se aragti siyaasi oo ballaadhan may ahayn naqdiga qolada tani ku naqdinayeenna koow waxaa ugu horraysay waxaana wadaan tuulun baa lagu xukumi karaaye ma aha wax ummad lagu xukumi karo ثانيا waxay lahaayeen waa xukm alghawqa waxana wadaan waa yani bulshada hadiyo goor dad umiyeen ama dadaan wax garanay ama dadaan majriyad siyaasa si fiican ula soconin ba u badantay saadaradeed waxay lahaayeen waxana kaynta la fadhiisatay waa un ghawqaagi magaalada inta isugu yeedheen uu wax gooyay ma habay taagnaayeen ma mabda la qaadan karo waxay taasi keensatay markay falsafadoodii ka soo horjeesatay isla markaasi ay noqon weyday inay tuulo ama si magaalo dhaafto inay Yurub dimuqraadiyadda wixii la oran jiray ay lewdo 1000 sanadood baan cid dambe soo hadal qaaday 1000 sano dambe ayaan laga maqan dunida korkeeda ama reer galbeed wax dimuqraadi la yiraahdo waxay noqotay markaa aragtiya oo aan socon karaynin saasi daraadeed bay ku dhaafeen qurun alwusta markii la gaadhay ama qarniyadii dhexe ayaa mar labaad waxa soo noqday aragtidii dimuqraadiyadda la oran jiray khaasatan qarnigii 17aad laga soo bilaabo khaasatan markii ay dhacday athawra al-ingiliisiya ama thawradii waddanka ingiriiska ka dhacday 1642 ilaa 1649 taasoo keensatay inay hesho xuquuq dastuuriya kadib markii ay dhaceen dagaalo badan oo barlamaaniya ama siyaasiya ama askariya oo ku gabagaboobay in la qabto boqorkii waddanka Ingiriis ka tarin jiray ee Charles la oran jiray oo maxkamad la soo taago oo dil lagu qaado thawradda dabadeed ama qurun alwusta waxa kaloo iyana istaadmay qarnigii 18aad kaas hore waxa qarnigii 17aad athawra al-ingiliisiya qarnigii 18aad baa iyana waxa mar labaad bilaabatay athawra al-faransiya falasafatu al-qarn al-18 ama qarniga 18aad falasafadoodii sida Montesquieu ama Jean-Jacques Rousseau oo ah ninkii qoray social contract book la yiraahdo social contract waa book ay u bixiyeen inuu yahay injiil thawra faransiya ama injiishi bible-kii thawradda faransiiska yani meeshii ka dhimbil qaadanaysay wuxuu ahaa bay yiraahdeen buugu qoray ninkaas la yiraahdo Jean-Jacques Rousseau isku daro falsafada qarniga 18aad iyana waxay bilaabeen inay fikradda tan mar labaad soo celiyaan taasa keensatay markaasi inay dhacdo athawra al-faransiya 1789 ilaa 1793 thawra al-faransiya oo iyana ku gabagabowday in boqortooyadii laga takhaluso jamhuuriyadna la sameeyo ummadana dastuur loo qoro dastuurkaasna lagu iclaamiyo waxa loo yaqaan al-xuquuq al-insaaniya laguna sugo mabda'a la yiraahdo sinaanta fi al-xuquuq wal waajibaat yani al-musaawa in la helo mabda'a oo ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka in lagu siman yahay waxaan ilaahay laakiin sida uu Dr. Turabi oo kale leeyahay wuxuu leeyahay waxaan oran karaa Yurub maadaama ay lowday fikradeedii dimuqraadiga la oran jiray hore maadaama aanay marnaba garanin kunka sanadood qaacida dastuuriya inay u dejiso waxa dimuqraadiyadda loo yaqaan falasafadeedu inay mar dambe ku baraarugaan in la sameeyo dimuqraadiyad leh qaacida dastuuriya waxay ka keeneen buuleeyay ixtikaakii ama isdhexgaleen dadka muslimiinta iyo dadka kristanka ama soo gaaritaanku soo gaadhay al-fikr siyaasi al-islaami waayo dadka muslimiintii maalinta ilaahay garteen ayay waxay garteen inuu sharcigu ka sareeyo dawladda boqorka iyo iraadatu shacab dhamaantiiba
waxay sameeyeen dawlad leh haykeliya liawlawiyat alaxkaam. waxaa dhacday bayn leenahay muslimiintu iyagu inay hore u yaqaaneen wax loo yaqaano albayca. mafhuumi albayca muxuu yahay? baycadu waa waxa lala gala imaamka ama ninka madaxweynaha u noqonaya dadka muslimiinta. baycadu waa caqd ama waa contract ama waa heshiis. heshiiskani muxuu yahay? bayca waa caqdi. fuqahadii muslimiintii hore waxay uga qiyaas qaadeen fiqhigooda mas'alada ugu caansanayd oo ahayd albayc. caqdulbayc bay uga qiyaas qaateen baa la yidhaha ashharu lcuquud ahayd. dabeetana caqdulbayca baa loo bixiyey. baycadu maxay tahy? waa xaq ay ummaddu leedahay inay socodsiiso ama ay heshiis la gasho inuu nin madax ummadda uu u noqon karo, laakiin bishart inay kula gasho maxay? bilikhtiyaari warida wa bilmashuura. inay iyadu raalli ka noqotay, dooratay, go-aan ama shuurana ay ku gaadhay. caqdiga kaa lagula galo madax ayaa waxaa loo yaqaana caqdi albayca fi shariica alislaamiya. waxaan leenahay caqdigaa baycada oo ah kuu imaamu malik fityoonayay: man baayaca imaaman wahuwa mukrih wahuwa mukrah faina baycatuhu baطila lianna sharط albayca tawafur alxurriya wاlاkhtiyaar. imaamu malik baa wuxuu lahaa cidda imaam bayca la gasha isagoo la qasbay ama aan xorriyadiisa kula gelin oo aan biikhtiyaarihii ku dooran ee la qasbay, baycadiisu waa baatil buu lahaa. waayo shardiga baycadee koowaad waa in la helo tawafur alxurriya wاlاkhtiyaar, doorasho in la helo. muslimiintu waxay yaqaaneen caqdigaasi marka lala galo caqdulbayca madaxda in haddana uu jiro qaanuunka loo yaqaano almuxaasaba oo ah xaakimku inaanu wuxuu doonaba samayn karin ee inuu xaakimku wadiifa tanfiidiya inuu yahay, wadiifo shaqo fulinaysa inuu yahay, ama nin shaqaala oo shaqo fulinaya oo weliba lagu xisaabinayo shaqadu fulinaya inuu yahay. almuxaasaba waa qadiya yacni dadka muslimiinta agtooda mas'ala badiihiya ka ahayd. waayo waxa qof wala muslim oo rumaysnaa siduu nebigu tilmaamayay inuu mid wal oo muslimaba yahay mas-uul, uu qof waliba mas-uuliyaddu inay gaarkiisa u saarantahy. waxaynu garan karnaa yacni muslimiintu xadkay ka taagnaayeen in madaxda markaasi uu yahay nin shaqaale oo caadi oo la xisaabinayo qaanuun iyo dastuur lagu doortay oo hadduu khilaafo lagu xisaabinayo. cumar bn اlkhadaab baa maalin maalmaha ka mida istaagay, dabeetana intuu hadlay buu yidhi ismacuu atiicu, hallay maqlo hallay adeeca buu yidhi. salmaan alfarisi saxaabiga la yidhaahdaa intuu istaagay wuxuu yidhi lagumana adeecayo lagumana dhegaysanayo ilaa aad ka warranta buu yidhi maradan dheeraadka adigu xaggaad ka keentay. waa imaam almuslimiin baa waxaa lagu xisaabinayaa xoolihii dadka muslimiinta oo la leeyahay. xaq qof waloo muslimiba markii ay fayga ama haniimadii la qaybsaday qaybtii loo yeeshay qayb ka badan baad adigu guntantaa la yidhi. cumar nin dheer buu ahaa, maadaama uu nin dheer ahaana marada gobolkiisii uu helay kuma fillayn. maro dheer oo dee wada qarinaysana uu guntan yihi. dabeetana waxa salmaan alfarisi uu yidhi laguma dhegaysanayo marka hore marka ka waran maradan dheeraadka adigu xaggaad ka keentay. cumar markaasuu yidhi wiilkiisiioo meesha fadhiya cabdillaahi bni cumar. cabdillaahi bni cumar oo warran. cabdillaahi bni cumar baa warrama wuxuu yidhi aabbahay waa nin dheero gobolkiisii wuu ku fillaan waaye, anaa gobolkaygii ugu daray buu yidhi oo anigu mara ma haysto. maradan dheeraadkee uu sitaa waa taydiyo anaa ugu daro markuu isku toshay. mur ilaana nasmac wa nutiic buu yidhi markaa salmaan. hadda wax dheh haddaba haddaa lagu aqbalayaa buu yidhi oo lagu dhegaysanayahay. yacni may ahayn madaxda inta la saaro in la iskama tegi jirin ee madaxda waxay ahaayeen kuwa la xisaabiyo. awalan markaa alfiqhi siyaasi dadka muslimiinta ay rumaysnaayeen waxay ahayd in bayca lala gala imaamka oo baycadan ay ku timid bilikhtiyaari waalrida wa bilmashuura inay ku timaado. in isla markaasi muxaasaba la leeyahy oo waa wadiifo, waa nin shaqo la qorayo shaqada tan in lagu xisaabiyo wuxuu xumeeyey iyo wuxuu wanaajiyo. idan yurub laakiin waagaasi iyada fikradda taallay waxay ahayd ama medieval periodka waktigay ku sheegaan quruun alwusfa, qarniyadii dhexe waxay ahayd qarniyaha yurub madoobay oo waayo federal systemkii baa dee lagu maamuli jiray xukmu liqtaac. dadka iyo dhulkaba nin baa isku lahaa, dhul walba nin baa lahaa iyo dadka deganba. dabeetana boqorkuna wuu usii wada talin jiray. boqorku wuxuu yidhaahdaa baa socon jiray isagoo can ariiqi liqtaaciyiin lasii marayo. shacabkuna wujuudba ma lahayn, wax jira iyo ummad toona ma lahayn, karaamo iyo xuquuq toona ma lahayn. sidaa daraaddeed ummaduhu had iyo goor marka ay isdhex galaan
wax badan bay isku raadeeyaan maanta yacni ummadda reer galbeed dunida way ka yaro xoog badantay taasaa waxa dhalisay in aaraadeedii iyo afkaarteedii dunidoo dhan ay ku hadaaqdo maanta meel kastoo dunida aad joogto waxaad maqlaysaa